السلام عليكم أصحاب تقاليها سود هذا ملول بوجوكتين واحد اللي هي كسود هذا قاعد مفرن يا قلبي إذن تشعل ملول بوجوكتين حد رجينيا إن أضعف من قبتين هذا اللي هي حدي أضوع سبتاي سبسكرايب هاي لوجن لاجنا ترى هاي لوجن إن تشرت هاي لوجن أنتوا وانهم أدينا قاعد محبريت كسمين ساعة أفكار ده كم سبينيس لما تيم كم حسنتين وحيدين هاي الشين علي ومركي سكر كرباش حلالها ولي متك ونفس أنا ولي نقول سيكي ويسهاين هذا بيان كم بدل نقول حوري أنا ما يشيك ما يساعد شيء غير وحاول نكسر ليه هنيكا أيوة كنا تداو anigu adiga hadalku oran kara oo hore ku iri oo hadda 2 milyan oo kelmadood oo dame ku oran kara oo isaga ka filan sabab aan intaan adiga ku dhaafo gabadhii aan kala tagteen aan u gaaraa meesha ma taalo mid soo wado aan u sugaa meesha ma taalo mid hadda kula sawirnaydna aan u faaleeyaa meesha ma taalo xasha wujud ninkan dalka Jarmalka computerka inay ugu jirto gabadha xalaasha oo ku qabo iyo carruurta xalaasha oo ku dhalay in uu computerka dalka Jarmalka uu gelin waayay marriage certificate uu geliyay ilmahaas inuu ku dhalay saaxiibtinimo guri dhisan iyo guri dumay guri 7 sano dhisnaa iyo guri 2 bilood ku dumay labada kan ka hadal leh oo faaleyn leh oo su'aal leh oo wadwadin leh ku yahay waa la garanayaa laakiin xaasha wujud anigu adigana ku soo weydiin maayo doondoonina maayo dadkana u sheegi maayo oo la soo hor fariisan maayo ninka iyo xaaskiisii maxay ku kala tageen saatana ku kala tageen maxaa guriga uga dumay ma isaga saatan yeelay muxuu saa u sameeyay waxa hadda islahayd shiina dhiiqada gali anigu ku dhici maayo oo gali maayo waxaan ku iri warneeyo aniga waxaan leeyahay lawyer inoo dhaxeeya aniga iyo dawladda qolada la yiraahdo finance amt oo canshuuraha qaabilsan waxaan maqli jiray in dhibaato igu filan faraqa ku haysta lawyer nin qabsaday hadda aragto waa nin doonaya in dawladda looladooda oo laga difaaco oo bad ku jira weey lawyer bad qof ku jira qabsada laakiin finance amtiga iyo adiga hay'adda cashuuraha iyo adiga cidda inay dhaxaynaysa waxa weeye istooya brata ama tax consultancy macnaa la taliye dhinaca cashuuraha ninkaas inay dhaxaya marka walaalkeen inuu bad ku jiro afkiisu ku qirtayo taas cadeynaysa dadka taageerayaashayda waxaan u sheegayaa ninkaasi nin aynu la sii tirsan karno ma aha farq weyn ah inoo dhaxeeya tusaale waxa idinku filan aniga 4 saac tusbaxba halka ay suran isagana silsba u suran marka ninka noocaasa mana ku xigmad guureyno mana la tirsanayno hadda ka hor gabar golo joog leh oo guri buuxa ka soo toosta oo markay halka marayso laga indha buuxsado baa waxay wadan jirtay oo madal kasta iyo meher kasta ay geyn jirtay oo u wadan jirtay gabar ay saaxiibay yihiin oo hagagasa oo guri dayacan ka soo kacda oo xaaladeedu allow sahal yahay oo aan hadal aqoon xataa oo iyada xataa dhinaceeda fariisanay gadaasheeda dame halka ka soo qoraansta ayaanta dameta waxa lagu yiri gabaray maxaa gabadha tan ugu tacadiyaysa oo maalin kasta u soo kaxaysta ma iska dayso gurigeeda ha joogtay maba loogu talagalin meelaha ka inay timaadday waxay tiri oo ku jawaabtay iga harbaan ka waay ninka odayga oo maalmihii u dameysay in soo falaashayay inaguna markasta aynu u ceynay waxa la socotaan arintiisa inaan shalay soo afbeeray ninka inaan la soo hadlo oo u soo jawaabo ma jeclayn laakiin war iga harbaan ka waay waa ku kalifaya hadda wixii ka dambeeya wada hadal bahaadkaas ka haray walaalkeen nabaradii halka kaga dhacay dubaaqooyinkii haday ugu dawoobayaan oo uu caafimaad iyo dan mooday inuu shiina cule ka soo hadlo oo maalintii 2 video ka soo sameeyo waxaan leenahay ruqsaan ku siinay fasax baan u tahay waa soo hadli kareysaa maalin walba waa soo fariisanaysaa shiine dib dame kugu soo jawaabi maayo ilaa uu ka maarmi waayo ilaa akarma ka maarmi wayso meesha ka saarsiin inka hadda rabto inaad go'aansato inaad la soo hadlin ilaa mar kale ilaa aan ka maarmi waayo ereyga ka saar waxay muujinaysaa inaad qeyl u raadinayso inaad ka soo hadasho inaad rabto inana beenano sheegin naftaada beenano sheegin ninka ka hareemaysidii
كهاري ما يد هو سعته نقولنا داود يلا هنا سيف عن اللي داودنا وليبا وين صعبين هاي كسر mararka qaar waxa jira hadda galabto kale arina ka maarmay waayay baa jirta mararka qaar kood waxaana ka maarmayn oo lagu kalifiyaa jirta laakiin ruqsa haysata wax soo hadli karaysa ilaahayna waxaan kaaga baryayaa oo ku weydiinayaa inuu inta caafimaad kaaga dhigo horeyna adaa guriga kale soo gardarsaystay oo soo doontay oo adaa afkaaga marxaati maxaa kula isugu filan oo adaa arinta soo bilaabay shiinana mar allaale iyo markaa soo falaashto buu ku soo wacayay marna isagu wicitaanka kaaga ma soo horeynay waxaan rabaa dhowr yar oo arimood ina halka ka taabto oo ay ka horeyso ugu horeyso xaaskayga iyo ciyaalkayga galafta u giftay oo ay ku xigto arintii cashuurta oo ay ku xigto arinta qabiilka oo aad tiri shiina waa cunsureeyay xasha wujud nin inuu qabiil Soomaaliyeed cunsureeyo lagu yaqaano mihi horeyna uguma cunsureeday haddana cunsureedayn maayo iimana damayn doonto ilaahay wuxuu yiri qabiilada iyo shucuubta waxaan idin ka dhigay la tacaarafu ina isku garataan waxa idin ku karaamo badan ilaahay xaqiisa qofka ugu alla ka cabsiga badan marka dad diin laanahay dad dhaqan laanahay anigu arinta xasha wujud adaa jecel ina maaragtay dadka ku beerraxawsato hadaa leedahay shiina muxuu yiri batuun ba abtiga ah war khayraba adeerka weeyaan ku irey meetaas ku dhibto dad kale shiinow inaad ninka tiraahdo batuun ba abtiga ama ahayn oo waxay ahayd batuun inaa qariso batuun nin la qarin karana maaha nin qarsoomi karana maaha waan inay tahay in lagu faano hadaan iri aniga ninkaas abtiga ah shiina batuun uma uusan dhihin faan أو بتون كديجا ينيلان ديرا إنه يهاي لكن سان هو أركب وساقات إنه وحي سامر ده يتقان إنه واديكسده ما عيل أديكسن شري درت إنه ساقاته ويسوي بتون ماشي مبالين با شين دت كرلا ترتم شري مسجد دت كرا يود مهم شري ما يود حل شرين أبتم ساقات شري سيكم عقد وين دت كلا أبتكم حوس ساقات بتون حوس ساقات نسوي بتون ساقات ماشي كجرت way dadka kale abtu hadda koor laga ma haysiin oo qof inta isqabsadeen dhahay hebela tigiis sababtoo batun soo qaatay waa adiga waxa meesh ku jira ka soo ku jira oo ku jireen soo cunsuriyad maaha waxa cunsuriyad wada oo ay wada kale hala qariyo waa qabiil Soomaaliyeed ma qarsoomi karaan dadka la sheegayo oo la wadwado bay kamid yihiin kaliya waa ka sharaf badan yihiin oo waxay uga sharaf badan yihiin waa dadka inta badan adinkooda iyo afkooda laga amaan ka helo halka qabiilada kale Soomaaliyeed qaar badan oo kamid ay iska hawl badan yihiin waliba qabiil dhan hawl inta u shiraan isku soo raacaan shakhsiyaad iska dhib badan iska leeyihiin marka anigu reerka ma cunsureedayn karo horeyna waa u sheegay waa reer sharaf badan qabiilka ay ugu haysataan isaga ila aado wuxuu yiri qabyaalad baa ku biyo dhigtay si aan taa ugu cadeeyo baa waxa ku yiri warinaana qabiili ahay waxa ku cadeynaysa adeerkay waxa ka raacay adeerka khayra ka raacay sidoo kale reerkaygi tolkayna qaditaanka qadeen waxaan ku ilaaway reer abtiga inay xildhibaan heleen oo soo baxeen anu xataa qabiil ma magac dhabin xataa nin kale shiinow inaad tiraahdo ninka batuun ba abtiga ah waa ku cunsureedaysay ninkaasi isaga cunsuri ah ninkaasi isaga cusuriya sababtoo ah qofka hadii la dhaho kana waa adeerka kana waa abtiga li tacaarafu waa sidii diintu tiraway hadaan walaalkay anu qabiil ku haysto adreesku hadda in siiyay iyo abtisiyihiisi ba xataa hadal ka yimi anigu marka waxa inaan galo ma rabo horeyna uma gelin gadaalna u gelmaayo wuxuu sheegtay ba anu ku xukumeeyaa ku qiimeynaya adduunkana waxa laangaab ku ah qofka dayacan oo aan dantiisa aqoon آخرنا وحال لانقاب نغنيا قفك الجنة لقى وايو مركا حاشا وجود من قبيل لقو يقانو ميهي يخلاني يداني إذن كل دكنا عسوريديننا مركا تلادان بطون منو حسو ما هين بطون با عسوريدين سان هالكا آخرة إذن كهالين خيرة إيا بطون وعلى من إنو إسو دقما لصوب وذا قادي كرو إسقسينا لوغا هالي كرو لوغونا عبتسان كرو تا انتا ساين كاللي نيكال اللي هاي أوضا يوحا تري shiina culay maartay gurigeyga iyo caruurtayda iyo
shino waa ku mahadsantahay intaas aad tiri aad ku karbaashtay kinsikey qalad ma ku karbaashtay qalad ma la fahma الريال عنده كرة وعنده فرصة وعنده راس وعنده جول يضيع الكرة قلبت اللعبة زي كاستو بهنا وطبعا labadana way sahay laakiin labadana waxaan leeyahay markasta wada shiidoontiin waxaan aad ku jirtiin waa social media ka hadlaysay mar walba waa shiidoontiin wax isu reebta waxa dhow la soo cafi kara isu reebta maanta waxaan leeyahay waqtigu haydiina wacnaado dad fiyo ku soo gaaro waxaan sameynaysaa